maanta waxaynu halkan isugu nimid kulan xog isweydaarsi wada tashi iyo in aynu halkan maanta go'aamo ku gaadhno oo ilaa beritoole labada cisho ee uu soconayo tababarkani iyo kulankani waxaynu isugu nimi oo kulankan tababarka ah uu daaran yahay inaynu u daafurno tababarkii muxuu ahaa muddadaba soo socday ee aynu ka wada shaqaynayno sida guud wasaaradahoo dhan ay ka wada shaqaynayeen waxaynu ka warqabnaa inaynu horey u soo dhammaystirnay 15 wasaaradood qaab dhismeedkoogii hay'adda shaqaalaha dawladda macadka tababarka shaqaalaha iyo madaxtooyada intaasoo horey 18 institution oo aynu horey u soo muxuu ahaa qaab dhismeedkooga u soo dhammaystirnay waxaynu markii labaad isugu nimi 8 wasaaradood oo iyaguna ka hadhanaa 23 wasaaradood 8 wasaaradoodna alxamdulillaah oo inagii bisha awalkeedii validation workshopkii ama daahfurkii in qaab dhismeedkii aan gacanta ku haynay uu soo gabagaboobay ku qabsannay iyada laftirkeeda casood maanta waxaynu diyaar u nahay inaynu qaab dhismeedka muddada aynu soo wadnay waqtiga iyo kharashka iyo dadaalku inaga baxay aynu sii daadejinno oo aynu ka wada shaqayno si qaab dhismeedka wasaaraduhu uu u noqon lahaa mid hana qaaday oo dhammaystirmay ilaa heer gobolna soconaya haddii allaha awoodda loo ogolaado hay'adda shaqaalaha oo runtii hay'addan isugu dhowna xagga shaqada marka laga hadlayo hay'adaha qaranka oo ka wada shaqeyno qaybta bani'aadamnimada runtii iyo isla xisaabtanka labadaba oo jecelahay shaqooyinka ugu badan ee la qabanayay hay'adahan ay qabanaysay inaan qaybta weyn ka ahayn waxaan runtii ugu mahadnaqayaa in gudoomiyaha cusub hay'adda shaqaalaha oo runtii qof akademiga oo la xiriira fiilkan muxuu ahaayey aad iyo aad marka horena ka shaqaynayayba in ay maanta shaqadan qabtaan runtii sharaf bay tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo tababarkan socon doona 2 maalmood oo ay idinku faaqidi doontaan kuna naaqishi doontaan habraacyadii iyo nidaamyadii ay dejisay hay'adda shaqaalaha dawladdu ee khuseynayay waaxaha human resource-ka ama cududa shaqaalaha iyo waaxda qorshayntaba shaqaalaha in la tayeeyo oo la daadajiyo maamulkooda oo runtii ay noqdaan kuwa aynu muhiimadda gaarkaa siinayno waa ujeeddooyinka ugu waaweyn ee ay u dhisan tahay hay'adda shaqaalaha dawladdu taasi unbay markaa daba socotaa tababarradan iyo habraacyadan la dejiyey marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inay madasha fadhiyaan agaasimo waaxeedyadii wasaaradaha 23 matalayay oo runtii ah wasaaradihii markaa qorshahan hay'adda shaqaaluhu ay waddo qaybta ka ahaa taa macnaheedu ma aha in wasaaradaha kalena laga tegay ama hay'adaha kale laakiin waa qorshe socda oo runtii aad qayb ka tihiin runtii qaranka waxaa ka socda reform oo ugu sarreeya madaxweynaha qaranku Muuse Biixi Cabdi oo soo daadegaya oo wasiiradu ku xigaan oo ku soo xiga gudoomiyaasha hay'aduhu oo ku xiga agaasimayaashu oo ay ku sii xigaan agaasimo waaxeedyadu markaa sidaas shaqaalaha ugu daagdegaya marka reformyadaasi ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay waxa weeyaan sidii loo tayeyn lahaa sidii loo heli lahaa qorshe sidii loo heli lahaa qaab ugu habboon ee markaa shaqaaluhu ay u shaqayn lahaayeen una heli lahaayeen agabkii ay ku shaqayn lahaayeen taasi markaa waxay ka dhigan tahay in la dejiyo nidaamyadii iyo habraacyadii markaa lagu shaqaynayay oo mas-uuliyadda koowaad ee markaa hay'adda ah ahmiyad gaara baa runtii annaga ay noo leeyihiin waaxda cududda shaqaaluhu ee wasaaradaha ama hay'aduhu iyo waaxda qorshayntuba waan aad baan ugu mahadnaqayaa tiimka ama kooxda hay'adda shaqaalaha dawladda ee barnaamijkan inoo soo abaabulay iyo cidda kale ee runtii la shaqaynaysaba dadaalka iyo tabca ay geliyeen runtii idinkana aad baan idinka mahadnaqayaa waqtiga aad soo hurteen